wanaagsan daawadayaal mar kale waxaadna ku soo dhawaataan barnaamij aynu kaga hadlayno maansada Soomaalida. Marka la yiraahdo maansada Soomaalidu waa ay jaadad badan tahay, noocyo kala duwan oo aan islahayn ayayna u kala baxdaa. Maansada marka la yiraahdo waxaa kamid ah ama ugu caansan qaybaha maanso ee ay soo galayaan gabayga, geeraarka, guurowga, jiiftada, buraanburka, heesaha, saarka iyo noocyo kale oo aanu halkan ku soo koobi karaynin. kulli waa jaadadka ay u kala baxdo maansadu, inkasta oo ay ugu sii sitaan ama ugu caansan yihiin gabayga ama heesaha oo maanta ah kuwa si weyn dadka Soomaalidu ay u adeegsadaan. haddaba maansada siyaabo kala duwan ayaa loo isticmaalaa looguna cabiraa dareenka. mar waxaa lagaga hadlaa dabeecadda, mar dhaqanka, mar dareenka guud iyo waxa markaasi qofku uu tabanayo, ha noqoto xanuun, ha noqoto jacayl, ha noqoto farxad ama se murugo markaasi haysa. nooc kasta oo ay tahay maansaduna waa ay ka qayb geli kartaa dareemada kala duwan ee aynu soo sheegnay. caawa barnaamijkan maansada Soomaalida aynu uga hadlayno waxaynu idiin soo xulay qaybo ka kooban oo wax ka iftiimin doona maansada, kuwaasi oo dhammaan la hadlaya dadka. haddii aynu marka hore soo qabanno, inta badan marka laga hadlayo maansadu waxaa jirta xilliyo maansadu ay ahayd qaybta ugu horeysa ee warbaahinta Soomaaliduna fariimaha ay soo gudbin jirtay, waxaana kaalinta koowaad ku jiray gabayga oo noocyo kala duwan lahaa. haddii aan idiin soo qabto qayb Soomaalidu ay caan ku ahaan jirtay bariyihii hore oo maansada ka mid ah, aan idiin soo qabto jiifto la magac baxday sulub. jiiftadaasi la magac baxday sulub waxa ay ka hadlaysaa nooc ka mid ah meesiyada kala duwan ee Soomaalidu ay xoolo ahaan u dhaqato, waana geela. geelu waxa uu ka mid yahay afarta meesi ee dadka reer miyiga ah ee Soomaaliyeed xoolaha ay dhaqdaan ka ugu qaalisan, iyadoo farduhuna ay soo raacaan. halka waxaa looga tegay garo, arigii iyo lo'dii. haddaba maansadan sulub la magac baxday oo aan filayo inay tahay maanso caan ah, dad badan oo Soomaaliyeedna ay xusuusan doonaan, waxaa caawa noo soo jeedin doona afdiinle Saciid Aw Muuse. maansadanse waxaa laga hadiyaa abwaan hore oo Soomaaliyeed oo qarniyo ka hor noolaa, magaciisana la oran jiray Bile Afqataare. waatan maansadii sulub oo uu noo tiriyo weliba noo kala dhigdhigo abwaan ama suugaanyahan afdiinle Saciid Aw Muuse. wuxuu ugu magac daray hal la yiraahdo sulub. sulub loorey iyadoo sulub loorey iyadoo sulub loorey ayrosigiya cawshay sagandada biciidkay sidoodoo kala ahoo silaan meeluu ka muuqday wiilal soo sahmiyeeno inuu geelu sidcaalo saaca loogu guddoonshayo ari waa sabad joogo nugul meeluu ka suufay lama saakun ahaatohii horu soo sidbatay oo saawirkii xerinayiyo gergirkii la socdoho loo saadeelay xeryaawo siradkii u baxayuhu saladii ka ekaatayo ayax baalkiisi naaday sifnaheeda la mooduhe sabadii iyo dhulka oo sabadii iyo sifaarkii cuna yeeshayo suula daajinhayuhi alla suu dahabeedayeysan qarara cudgoonkay soyanay kawrayuhi suudaabedayeysan qaraara cudgoonkay hoga saaxil lamoodiyo soyanay kawrayuhu awrku qooq la sarqaamayo dhibidii isku sayrayo micidiisan qaraysiyo abuur sayr calle tuurino amiir waayaa socdiyo qooq la sarqaamayo awrku qooq la sarqaamayo dhibidii isku sayrayo micidiisan qaraysiyo abuur sayr calle tuurino amiir waayaa socdiyo sabar dheer tagalooftiyo hadba sayran eryayuhu sideedii dabadeedna obadiiba sameeyey goojadu sara qaaday.
sideedii dabadeedna ogaade basameeyey goojaduu sara qaadayo xagaa soo sagsaglaysayoo dayrtiisoo socotayoo dirac soo sugatay waa hal sano soo sugatayoo bila suuran u joogto sulxubteediiya dhaystay qajeelu kala socdayoo mid sabaankii horeeto geeljir loogu sadqiyaa socod fulka dareemay sanad markii geelu 100 halaad oo ay dhaayeen baa waxa la yiri wiishu geela ma dhalin karaan hebelow geela suusan u bashiishan ama uusan u fool halaabin ama soo u dayacmin ama ubadka soo u daabin adiga horuuse geelaahi geela dhali maanta adaa geela ku qaybsan marka mid sabaankii horeeto geeljir loogu sadqiyay baa socod foolka dareemayo soo uga dareemay xerada ayuu agoorta waagu bariyo saad tukaday buu xerada fiirshay hal baa taagan weyn goojinaysa hadba way hamaasanaysa marka in dhalay saacad sabaankii horeeto geeljir loogu sadqiyay baa socod foolka dareemayo sakal eedyar ku laabayo dhulka meelsibay eebeba ayroose xisay baarkaw ilmihiisa qaroorkii iyo majiisoo sidbiyeen oo suxfulkii laga qaadayo suuradii nebigii iyo salligii lagu yeershayo soo ifsaaray ilaahay ciyaalkii halkuu taagan oo raba hasha in laga sidko oo awr dhasho ama liig baa sabigii yaryaraana subayeegahay maxay dhashay subayeegahay yani madabba mise waa dambar baa yiraahdaa hadii liig dhasho waa dambar hadii awr dhasho waa dabo walqalaya sabigii yaryaraana subayeegahay yani الله صوح وريركاي الله صوح وريركاي الله صوح وريركاي المضى سبيغ ليسي لا صلاح يهديبا أفرتيرا سناتيو يبتحور كسوف سم لي يا رب سم لي الله صوح وريركاي المضى سبيغ ليسي لا صلاح يهديبا أفرتيرا سناتيو يبتحور كسوف سم لي يا رب بالصوف كذا الله ايو متكلو لا سعودي سمان لو دعيو مركي سودو ضاربا علمي لو سرقات وسرقاديو سيدي ارلا سانتوريبي هاد بسابكين راكت سابكين راكت يا رب سيدي نو سؤاشي سدمي قيلو ويغا سدا حد سيدي ارلا سانتوريبي هاد بسابكين راكت هاشا علمي با عواشدا كبخاي لبا قار باي نقطay libaaxuna waa kan aalaaba laba qaar ah marka labada qaar bay isla waayaysan marka ilmaha markii suudugu daara ilmi loo sar qaaday sida ارلا سانتوريبي had bsaabkeen raakт ilmahana waxa looga qaadayaa qoraxda geerarkaas halkaas ayuu ku egyahay aad iyo aad buu aniga ila xiisa badan yahay markii la fasiro lagana yaabay dhalinta dambe ama jiilkeena kan dambe hadallada ku jira badankood ba inuu soo aqoon. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.